ciidamo ka tirsan dowladda ayaa is-hortaagay qaar ka mid ah xildhibaanadii laga mamnuucay fadhiyada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. mudanayaasha oo lagu waramay inay ka mid yihiin Mahad Maxamed Salaad iyo Xasan Afrimbi ayaa waxaa la wariyay in askartu ka celisay isgooska dabka ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. kadib is-hortaaga mudanayaasha, gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka ayaa gaaray xarunta aqalka hoose. wasiirka caafimaadka Fawziya Abiikar Nuur ayaa sidoo kale ka soo muuqatay madasha xilli shirgudoonka ay ku weheliyeen labadiisa ku-xigeeno. afayeenka golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Maxamed Mursal Cabdiraxmaan ayaa furay kulanka golaha shacabka. mudanayaasha waxay ku hormareen ajandaha ansixinta laba xubnood oo ka mid noqonaya guddiga madax bannaan ee xuduudaha, kuwaasoo kala ah Axmed Seylac Muuse iyo Maxamed Cismaan Cabdulaahi Xamza. waxaa ogol u codeysay 136 xildhibaan, ma jirin cid diiday, waxaana ka aamustay 3 mudane, sida uu shaaciyey Mursal oo faray in la dhaariyo labadaas xubnood oo taariikh nololeedkooda loo qeybiyey xildhibaanada xaadiray shirka. waa Axmed Seylac Muuse iyo Maxamed Cismaan Cabdulaahi Xamza. labadan xubnood inay guddiga xuduudaha ka mid noqdaan inta ogol u codeynaysa gacantaaga hala dejiyo. inta maya u codeynaysa yaa ka aamusay hala soo gudbiyo. codeynta sidaan ayay u dhacday. xubnaha kale ah Axmed Seylac Muuse iyo Maxamed Cismaan Cabdulaahi Xamza inay ka mid noqdaan guddiga xuduudaha waxaa ogol u codeeyey 136, wax diiday ma laha, waxaa ka aamusay 3, sidaas ay ansax ku yihiin. wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur oo ka hadashay fadhiga golaha shacabka ayaa xaqiijisay in qofka qaata goojada koowaad ee talaalka COVID-19 uu weli u nugul yahay xanuunka, balse waxa ay ku qeexday in uu u qabanayo sida hergabka oo kale. waxyaalaha ugu weynay ku dadaashay dawladda ay ahayd wasaaradda caafimaadka ay soo jeedisaa waxay ahayd war waxaan wadamadii naga qanisanaa naga xoog badnaa ilaaha xoog badan ayaa u babac dhigi waayay oo ay dhimashadii badatay oo wax walba haystay. annaga waxaan nahay wadan miskiin, dhaqaale islaameed oo la sugaayo marna la waayo ku nool, ma ka bixi karno, ma haysano qalabkii lagula dagaalami lahaa. sanadkan markuu bilowday baaritaankii la sameeyey 1 Janaayo ilaa iyo 31 Janaayo waxay ahayd 14,000 iyo ka badan. baaritaankii kale la sameeyey 1 Febraayo ilaa iyo 11 Febraayo oo aanan gaarayn nuskii 14,000 oo bishii dhammaatay oo January ahayd, kaliya caseska soo kordhay oo positive noqday wuxuu ahaa 52%. waa qiyaasi kartiin magaalada soo u galay. qabuuraha ishaan ku haynaa gobolka Banaadir annagoo kaalmaysanayna. qabuurihii aad u bateen, dhimashada aad u baratay. wadankina wuxuu ku jiraa emergency iyo kala gur siyaasadeed oo mararka qaarkood attentionkii weynaa cudurka ka jeediyo. waxaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahadceliyo man laa yashkuru naas laa yashkurullah. horta dhaqaatiirta iyo shaqaalaha caafimaad oo Soomaaliya oo dhan, wiil iyo gabar la tacaalaya cudurka, habeen imaan u taagnaa. xildhibaan Sakariya Maxamed Xaaji Cabdi oo ka tirsan guddiga aqalka hoose oo u saaray xaaladda coronavirus ayaa naqdiyey hadal ka soo yeeray Fawziya oo la xiriira dhimashada COVID-19. problemku waxa weeye haantii qofka waxay haynaysaa 2 saacadood kaliya. dahabshiil waxay ballan qaaday mashiinno cusub oo ah kuwa sameeya oxygen-ka. intii 12 marka aanu joogay weli lama helin, hadday hadda keentay ma aqaan. waxaa nasiib darro ah hal mashiin buu soo gatay muxuu ahaa isbitaalku Kenya ka soo gatay $110,000 baa laga soo bixiyey. ma shaqeeyo, waa jaban yahay. mashiin duuga ah oxygen. haddii aan raadiyey mashiinada oxygen-ku intay joogaan $60,000 bay joogaan kuwa cusub.
kanna waxaa laga bixiyey 110,000 waxaan ka qoray agaasimaha arrintaas waana jaban yahay sidii loo keenay lama isticmaalin biraha ka maqan waana duug waxaa marka muuqata waxaa kaloo iyaduna muhiim ah hay-ad daraasad ka samaysa cudurka garaafkiisa ma jirto cid u xil saaran ma jirto wax emergency oo dalka la geliyey oo dawladda dhexe gelisayna lama hayo measureski loo baahnaa in la qaado oo ahayd mobilization public mobilization oo ah in loo jeesto cudurkan waayo waad ogtihiin oo ilaahay wuxuu abuuray oo adduunka ku abuuray nafta bani aadamka ugu qaalisan walaqad karramnaa bani aadama wafadalnaahum calaa kathiirin min alcaalamiin baa ilaahay looma jeedo waxaa muuqata dayac baahsan oo la dayacay nafta dadka maxamed yaxya jiino warbaahinta nation muqdisho